Mararka qaar waxaa dhacda ilmaha yaryar gaar ahaan sanadka ugu horreysay noloshooda waxay bilaabaan amaba iska keenaan qufac been abuur ah oo aan waxba ka jirin. Hooyada haddii ay ilmaheedu ay ku aragto qufac yar aad ayay u walwalaysaa, waayo hooyooyinka had iyo jeer waxay ka walwalaan caafimaadka ilmahooda. Balse haddii qufaca uu yahay mid been abuur ah ama prank ah oo aan waxba ka jirin, hooyada ma jirto sabab ay u walwasho. Su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay, maxay hooyadu ku kala garan kartaa qufaca been abuurka ah oo ay ilmuhu iska keenayaan iyo qufaca muujinayo in ilmuhu ay xanuunsan yihiin? Haddaba intaan u gudagelin, waxaan si gaar ah kaga codsanaa in aad muuqaalka sheer garayso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xiran si ay ugu faa'iidaystaan. Sidoo kale muuqaalka like saar, page-kana follow dheh si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkaan soo geliyo. Sidoo kale xagga hoose ka bax qaar ka mid ah hooyooyinka si ay ugu faa'iidaystaan muuqaalka. Mahadsan. Mararka qaar ilmaha yaryar waxay iska dhigayaan kuwa qunfacayo amaba hindhisayo. Taas micnaheedu ma ahan ilmahaas in ay xanuunsan yihiin. Waa xaalad caadi ah, waa mid ka mid ah hababka ama siyaabaha ilmuhu ay iskugu dayayaan in ay kula xiriiraan. Waayo ilmuhu markay yaryar yihiin ma hadli karaan. Waxay isku dayayaan in hooyadu ama waalidiintu in ay la xiriiraan. Maadaama aysan hadli karin, waxay sameynayaan jabaq ama shanqan sida qunfac iyo hindhis si ay adigu kula xiriiraan oo aad uga soo jeesato. Waxaa laga yaabaa in aad waxyaabo kale aad ku mashquulsho ama TV-ga aad iska daawanayso ama internet aad iska isticmaalayso. Marka ilmuhu oo agtaada fadhiyo say marka ay kula xiriiraan waxay isku dayayaan in ay dhabaq sameeyaan oo waxay bilaabaan inay qunfaca iska keenaan amaba hindisaan. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay, maxay tahay sababta ka dambeyso in ilmuhu ay sameeyaan ama ay qunfacaan qufac been abuur ah? Xaalado badan ayaa loo aaneynaya. Qodobka ugu horeeyo oo ay ilmuhu u sameynayaan ama isaga keenayaan qufac been abuurka waxa weeye inay ku soo jiitaan dareenka hooyada ama waalidka. Waxaa laga yaabaa hooyadu in ay ag fadhido ama TV daawanayso amaba hawlo kale ay ku mashquulsan tahay si dareenkeedu ay u helaan amaba ay kula ciyaaraan. Waxay sameynayaan ama ay qunfacayaan qufac been abuur ah. Ilmuhu yaryar aad ayay u caqli badan yihiin mararka qaar. Sidoo kale qufacaas waxay u sameeyaan si madadaalo ah ama funny ah. Waxaa laga yaabaa in dhabaqaas ay ka heleen ay ku celceliyaan. Mararka qaarna waxaa dhacdo in qanjirada soo saara candhuufta inay aad u shaqeeyaan. Maxaa yeelay bilaha ugu horeeya, labada bil ugu horeysa nolosha carruurta aad ayay u shaqeeyaan qanjirada soo saara candhuufta. Ilmuhuna ma garan karo candhuufta badan ee afkiisa ku jirto inuu liqo ama inuu tufo. Marka wuxuu sameynayaa inuu ku ciyaaro. Ciyaartaas ayaa waxaa ka dhalanayso in uu ku qufac ama qufac ay ka imaadaan ama ku saxda ayaa laga yaabaa. Dabcan waxaad isweydiinaysaa, maxay hooyadu ku kala garan kartaa qufaca been abuurka ama prankiga iyo qufaca dhabta oo muujinaya in ilmahaas ay xanuunsan yihiin? Hooyadu waa in qodobadan ay samaysaa. Haddii ilmuhu ay ku aragto qufacaas yar, waa in ay jagab ku samaysaa ama ay eegtaa heerkulka jirka. Ilmuhu xumad miyaa hayso ama maqandhaysan yahay, waa inay eegtaa. Sidoo kale hab neefsiga qofka ama canuga yar waa inay eegtaa. Neefta miyaa ku dhagayso, neefsiis ma sida caadiga ah isbeddel miyaa ku imaado, ma shanqar ayay leedahay neeftiisa. Sidoo kale waa in ay hubisaa. Hooyada waxaa kaloo laga doonayaa in cuntada ilmuhu ay eegtaa. Haddii caanaha siin jirtay ama naaska sida hore ee ma u jaqaa, isbeddel miyaa ku imaado, cunxumo miyaa ku timid, iyana waa in ay fiirisaa. Sidoo kale hooyadu waxaa laga doonayaa inay eegtaa sanku qoyaan ma leeyahay ama diif badan miyaa ka socdo. Sidoo kale hooyadu waa inay eegtaa qufac maya qufac isdaba joog ah oo mararka qaar aad moodo in ay naqaska ay ku dhagaayaan. Waxaasoo kale hooyadu inay hubisaa loo baahan. Marka haddii hooyada carruurta ay ku aragto qufac badan isla markaasna ay la jiraan calaamadaha aan hadda sheegi doono, mid ka mid ah ama qaar ka mid ah calaamadahan aan hadda sheegi doono, hooyadu waxaa loo baahan yahay in ay degdeg ku geyso xarumaha caafimaadka. Calaamadaha waxa ugu horeeyo ama qufaca haddii ay la jiraan xumad ama qandho. Sidoo kale haddii qufaca uu la jiro sanka inay biyo ka socdaan ama diif badan uu leeyahay. Sidoo kale haddii neefta aad moodo inay ku dhagayso ama shanqar ay la jirto, shanqar aad hore u maqli jirin.
sidoo kale waxaa loo baahan yahay in aad xarumaha caafimaadka aad geyso. sidoo kale haddii ilmuhu tabardari aad ku dareento ama cunxumo, sidoo kale neefsashadana ay ku dhegayso, hurdadoodna ay yaraato, waxaa loo baahan yahay xarumaha caafimaadka in aad geyso. sidoo kale haddii midabka haragga ama maqaarka carruurta isbedela ama qufaca uu noqdo mid isdaba joog ah oo yacni aad moodo inuu naqaska uu ku dhegaayo ama shanqar badan ee farihiisa aad ka maqlayso, waxaa loo baahan yahay in aad xarumaha caafimaadka aad geyso. guud ahaan calaamadahan soo sheegay mid ka mid ah ama qaar ka mid ah haddii qufaca ay soo raacaan, markaas qufacaas ma ahan mid pranka ama mid carruurta iska keenaya, waxaa loo baahan yahay in aad booqataan xarumaha caafimaadka. balse haddii qufaca uu yahay mid been abuur ah amaba carruurta iska keenayaan, calaamadaha aan soo sheegay ma lahan. fadlan hayloobin in aad muuqaalka sheergarayso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xiran si ay ugu faa'iidaystaan. sidoo kale muuqaalka laagsaar, page-kana follow dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaalada ama talooyinka caafimaad oo aan maalin waliba halkan soo geliyo. sidoo kale xagga hoose kabac qaar ka mid ah hooyooyinka oo aad jeceshahay in ay muuqaalkan ka faa'iidaystaan. intaasaan kusoo gabagabeena. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.